og dhegaystayaal waa inoo toddobaadyada dambe aniga oo mar kale idiin wadi doona mahmaahda inteeda aanu garanayno ciddii tidhi iyo sababtii ka keentay. fanka iyo suugaanta inuu bal ogaado oo ka salgaaro wixii lagu dhori jiray waxa ka runa su'aalo ayuu weydiiyey ay ka mid ahaayeen maxamuudow rag yaa u kibir badan wuxuu jawaabay hadba ka ugu ladan wuu ku celiyo wuxuu yidhi maxamuudow rag yaa u caqli xun wuxuu jawaabay hadba kan ugu ladan su'aalaha sayidka iyo jawaabaha maxamuud oo la israaciyey xikmad aawadeed ugu guuxdo middood muddo hadduu xaruntii joogay ayuu berigii dambe anbabax u faarumaystay dabadeedna kolkii la tiscimay oo uu dhaqaaq maagan yahay ayuu sayidku u yeedhay si uu talo ugala haro wuxuu ku yidhi maxamuudow muddo waad nala fadhiday taleex ka war wuxuu jawaabay in cali qablax nin colaadeed bannaan ma dego oo noqotay mahmaah cilmiga tabaha dagaalka waafaqsan wuxuu maxamuud arkay taleex inay ku taal meel bannaan oo aan buuro iyo dheri u og lahayn ciidanka joogaana uu cadowgiisa dibadda u yaal inkastoo uu sayidku ka dhisay qalcado xoog iyo dhuuxba badan oo weli ishaysta diyaaradihii ingiriiskuna burburin waayeen 1920kii horaantoodii haddana taba dagaal awgood kolnaba lama garab dhigi karo ayl iyo ilig oo ay talaxumo ka soo rartay hogaamiyaha laftiisuna uu in doora ka qoomameeyey waxaan qiyaasayaa hadalkii in cali qablax oo ahaa nin colaadeed bannaan ma dego dhagaha sayidka inuu muddo ka dhawaaqayay waxayna ila tahay hadalkaasi inuu u horseeday gadaalkii inuu sayidku barta taliskiisa u raro mirasho iyo bowraheeda ku fiican dagaalka dhuumaalaysiga ah iyo halganka gaadmada ku salaysan ma hubee waxaan dareemayaa nin colaadeed bannaan ma dego mahmaahda ahi inay wax ka beddeshay taariikhdii iyo tabihii dagaalka ee daraawiishta intii u dhaxaysay 1916 ilaa 1920. waa tahay sayid maxamed laftiisu gabayga iyo guud ahaan maansada ka sokow wuxuu ku jiraa ragga Soomaaliyeed ee halku-dhagyada mahmaahda noqday laga qabsaday inkastoo daraawiishta taqiini ay badiba iisheen waxaa laga wariyey inuu yidhi wax fudud oo aan farda ahayn baan nacay isagoo malaha inoo sarbeebayay cuslaantu inay dadka u wanaagsan tahay welibana ay dumarka door u sii tahay waxaad moodaa inuu rabay inuu yidhaahdo neef culusi neef ma aha oo dagaal laguma galo colna kaalama cararo haweenay fududina reer ma hanato oo gaari ma ahaato mar kale isagoo la moodo inuu soo koobayo falsafadii uu nolosha ka haystay waxaa laga sheegay inuu yidhi 3 rag kalama tashado roob baa da'aya reerkaaga ma u rartaa mase waad ka nagaysaa u rar baan isaga daayey soortaan ma cuntaa mase waad bixisaa bixi baan isaga daayey rag baa kula diriiraye ma la diriirtaa mase waad ka baqataa la diriir baan isaga daayey taana ka gudub ragga Soomaaliyeed ee mahmaahdooda la xusuusto waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray aadan dirir faarax cadde oo u dhashay dhulka ximan loo aqoon jiray haatanse qaybo ka mid ah galgaduud loo bixiyey aadan dirir oo ahaa nin reer miyi ah oo habeen iyo maalinba ku qasbanaa inuu socdo oo ama aroor wado ama sahan iyo arrimo kale u tafaxaydnaado wuxuu kal walba arki jiray sagaarada oo ka cararta mar alla markay jaqafta saantiisa maqasho sagaarada ma dabto oo ma qasho oo hilibkeeda ma cunee maxay tarow iga cararaysaa ayuu malaha dhowr jeer isweydiiyey maalin dambe isagoo sidiisii isaga saqaafaya ayay raxan sagaara ahi dareentay kolkaas bay isa sii daysay oo ka carartay dhabanada intuu qabsaday oo iyadoo sii baxsanaysa eegay ayuu yidhi saw sagaaro ima barato waxay noqotay mahmaah caan ah aadna ku mahmaahi karayso kolka aad damiinnimo ku dhaliilayso qof aad in doora istaqiineen oo aad islahay dabcigaaga iyo waxa lagaa fili karo ayuu aad u badiyaa ha yeeshee dharaar dambe kuula yimid arrin aad ka fog tahay oo aadan dadkeeda ahayn taana ka gudub
waxaa la yidhi nin baa geel loo ari iyo gammaan xoolo adduun meesi walba xero ka buuxsaday. caanuhu weelashiisa kama maran jirin, dumarkiisa afarta ah iyo carruurtiisuna waana gaajo ma dareemin. ha yeeshee nimco waliba nuqsaan waatan leh. waxaa dadka kale aqalla waaweynaa, wuxuu isagu lahaa aqalla yaryar oo gabayraha habeennimo iyo suudiga dharaareed aan midna looga cararin. rag ay daris ahaayeen kaftana lahaayeen ayaa maalintii dambe su-aal u soo jeediyey oo ku yidhi, mataanow, xoolo la'aan iyo ciidan la'aan midna kuma haysee aqalladan maxaad si uun isaga odhan weyday. ninkaas oo la odhan jiray mataan maxamed cabdille wuxuu ku jawaabay, calool dharagtay meel ay seexato ma weydo. wuxuu ninkaasi doonay raggii wax weydiiyey inuu dareensiiyo dhooniga iyo hoyga inuu dhoonigu horreeyo, isaguna uu la halganka gaajada ku hawlan yahay aan weli u soo jeesan aqallo waaweyn oo marin wanaagsan lagu farsameeyey. taana ka gudub. nin isna reer ximanood ahaa oo la odhan jiray khalaf maxamed xasan waxaa loo xusuusan yahay mahmaha tidhaahda gobonnimo dhaga adayg baygaga haray. ninkaasi jilibkuu ahaa ayaa waxaa ka taagroonaaday jilib kale oo ay abtirsiino iyo darisba wadaageen. khalaf maxamed iyo raggii uu u ololayn jiray ayaa kolkii dibindaabyo kasta lagu dayey, markii dambe la damcay in lagu dirqiyo inay dhulkaasba ka guuraan oo ay ceel iyo carshinba uga kacaan jilibkaa kale ee u xoogga sheegtay. nimankii xoogga isbiday 3 fariimood bay u direen khalaf maxamed. fariimahaas oo mid walba dulucdeedu ahayd inay degdeg uga guuraan ruumankii ay deganaayeen, weligoodna deganaan jireen. khalaf iyo raggiisii way la noqon weyday, wax kastaba ha muteene inay caynka hoosta ka geliyaan oo ay ka guuraan dhulkii ay ku dhaqdeen ee ay degiddiisa u barteen. fariintii saddexaad kolkii ay u timid, wuxuu khalaf maxamed jilibkii cadaadinayay ugu warceliyey, gobonnimo dhaga adayg baygaga haray, oo macnaheedu yahay raganimo iyo gobonnimo maanta waxaan ka hayaa waa maya. xoog ma hayo aan isaga kiin celiyo, sidaasoo ay tahayna waxaan ku mintidayaa ereyga maya oo aydanaan ii diidi karin. gobonnimo dhaga adayg baygaga haray waxay noqotay mahmaah uu ku mahmaahi karo ruux kasta oo la damco wax aan dowgiisa ahayn ama aan u cuntamin tunjileecsi awgiis in la yeelsiiyo, dabadeedna cidkuna ha ku soo dume go'aansada waxa isaga la toosan inuusan cabsi awgeed uga xubsiiban. waa tahay raggii garta yaqiin ee Soomaaliyeed nin ka mid ahaa ayaa la odhan jiray Kaahiye Gaaray. wuxuu Kaahiye ahaa gar kasta oo la isugu yimaado nin aan looga adkaan oo hogaha iyo helimada hadalka heli ogaa. ninkaasi isaga oo doonayay inuu sheego sida uu geedka shir u hantiyo og yahay maalinta isaga iyo rag kale loo garnaqaayo, wuxuu ahaa ninkii yidhi niman ii faqay u noqde oo noqotay mahmaah. wuxuu u jeeday inuu yidhaahdo rag ay garina dhex taal oo intaan geedka shir la imaan oo dooda la furin ii soo tashaday, damacno ka galay inay imarin habaabiyaan, mindhaa guuli kama raacdo, ku guulaysan maayaan. waxaan na geyaysiinayaa tashigoodii hore inaan ka dhigo barkumataal oo ay kol dambe kood isugu noqdaan. ninkaas oo garyaqaan caana ahaa ayaa waagi dambe waxaa ku dhacay cudurka afmaroorka ama shimbirka loo yaqaan. nin aan cudurkaa ku ogeyn sii yaqiinay ayaa beri dambe la kulmay oo ku yidhi, maxaa Kaahiyow kugu dhacay? Kaahiye Gaaray wuxuu yidhi, afkuu eeday oo noqotay mahmaah uu ula jeeday sidii aan dadka gartooda u gafsiinayay, siday ii habaarayeen mar walba oo aan aftahanimadayda kaga guulaysto, sidii ay isha guurtida iyo geedjoogayaashu iigu dhacaysay ayuu afku imarooray oo waxaan afkayga ahayn cudurka ima keenin. afkuu eeday waxay sidaa ku noqotay mahmaah uu ku mahmaahi karo qof kasta oo qiranaya dhibaato uu isla isagu sababteeda lahaa oo ku timid. taana ka gudub. muuse cawl iyo fooley aadan cali waxay ahaayeen 2 nin oo xigta ahaa noolaana bartamihii qarnigii 19aad. dhulka ka tirsan ogaadeen gaar ahaan inta u dhaxaysa Shilaago iyo Qabri Dahre ayaa midba dhinac ka degi jiray. labaduba waxay ahaayeen 2 nin oo uu ninba meeshiisa ka ahaa maqadin la daba galo oo taladiisa la tixgeliyo. way ismaqli jireen, isma ay arki jireen, in badan bayna isu bohoryoobeen. waagi dambe ayuu eebba kulansiiyey. kolkay is salaameen oo haasawa gaaban dhex maray ayuu fooley aadan ku yidhi muuse cawl, ina adeerow in doora ayaynu ismaqlaynay mase aynu kulmine
maxaa xumaana oo adigu aragta. muuse cawal wuxuu eegay fooley soo wuxuu arkay inuu caga cad yahay oo aanu kaba ilanayn habaas badanna oo cagihiisa daboolay. muuse cawal wuxuu yidhi wax kalaba intaan la gaarin hadda oo la joogo in adeerow aakhirana u salaaliid adduunkana u kabaliid oo noqotay maahmaah loogu maahmaaho nin isagoo ay ceeba ka muuqdaan haddana sheegta ama isu qaata rag inuu isagu ugu horreeyo amaba uu ugu sito. dhegaystayaal waa inoo toddobaadyada dambe aniga oo mar kale idiin wadi doona mahmaahda inteeda aanu garanayno ciddii tidhi iyo sababtii ka keentay. fanka iyo suugaanta. dhegaystayaal ismaaciil midha kuma jiro shakhsiyadaha inta mar iyo laba laga hadlo laga hari karo. dad badani siday og yihiin wuxuu ahaa nin ballaaran oo ka qayb galay saami libaaxna ka soo qaatay asaaskii iyo taabagalkii halgankii dheeraa ee uu sayid maxamed cabdulla xasan geyiga soomaaliyeed ku gobaynayay. wuxuu ismaaciil ka mid ahaa muqadimiin ee sayidka u suuro geliyey inuu calanka jahaadka iyo gobonnimadoonka kor u qaado xilli aan afrika jahaad iyo gobonnimadoon toona laga hadalhayn lagana dareensanayn. daraawiish ka hor iyo kadibba dadkii ismaaciil mira yaqiin waxay ku tilmaameen nin aad oo weyn daacad ugu ahaa ololihii sayid maxamed, nin la dagaalanka gumaysiga u dhaganuglaa oo hawl kasta oo dhib iyo hawkar leh loo xil saari jiray. ereyga sayidku wuxuu u ahaa sharci fulintiisu waajib tahay, amarkiisuna wuxuu gelin jiray rayrayn iyo farxad uu barye ku laabsamaado. goobta dagaalka wuxuu kala mid ahaa hanadadii kale ee daraawiisheed, waxaana u dheeraa howlaha gaarka ah ee aynu maanta ku magacaabi karayno wardoonka, sahanka iyo ka qaybgalka fulinta waajibaadka halista, sida weerargelinta xarumihii daraawiishta laga colaadin jiray oo ay ka mid ahaayeen hobyo, berbera iyo boosaaso. inkastoo aysan jirin wakhti nabadeed oo daraawiish soo maray, haddana waxaa jiray marar badan oo ay nabad caabuq ah daraawiishii cadowgeedii tirada lahaa ay ku kala joogeen. ragga dagaalyahanka ahi mararkaa oo kale weynaysan jireen, asoos reer bay geli jireen, tabac xoolaad bay u jeesan jireen, dumarkii ay qabeen ee ay colaaddu dayrka dhex dhigtay ayay taran ubad aawadeed ula joogi jireen amaba diin iyo cilmi aakharay raacan jireen. ismaaciil mire isagu marna uma jeesan danaysigaas shakhsiga ah ee loo jeesan jiray inta ay nabadda caabuqa ay jirto. xilliga nabaddu wuxuu u ahaa xilli dagaal, faraskiisuna wuxuu socod badnaa kuma dakaami jirin dhulka u dhexeeya taleex iyo beledweyne, taleex iyo qoraxey iyo taleex iyo xeebta ayle. bila kadib ayuu sayidka ku soo noqon jiray isagoo war buuxa uga sida qalcadaha dagaalku waxay ku sugan yihiin, diyaar ahaanshaha ciidamadu siduu yahay, sida saanadda iyo hubka loo haysto, iyo idil xaaladda guud ee dagaankaas daraawiisheed waxa lagaga tashan karo. dareenkaygu wuxuu isiinayaa dad badan oo aan qalcadaha aqooni inay dhagaysanayaani kolka maan isku dayo inaan u iftiimiyo. xilligii daraawiisha dhaqnayd wuxuu allaha u naxariistay sayidku xoogga saaray laba waxyaalood oo ragga ka sokow aan la'aantood dagaalkiisa hirgaleen, waa tarminta fardaha iyo dhismaha badan ee baaxsan ee qalcadaha. miyaad dhegaysta aragtay qalcadda daawad ay daraawiisha u bixisay ee uu sayid maxamed magaalada ayl ku asaasay? waa dhufays adag oo uu sayidku ugu talagalay cadow bannaanka ka soo duulay inuu ku daaduumiyo iyadoo uu ciidankiisu bad qabo. ceelku guduhu ku yaal oo colka ku jira biyawaal lama dagaalami waayo, bakaartii gudahay ku taal oo ciidanka ku suganay gaajo lama halgami waayo. daldalool derbiyada ku sariiran ayay qalcaddu leedahay, waa meelo qoriga afkiisa ku jaango'an oo aad cadowga ka shiishi karayso iyadoo uu isagu dibadyaal kuu yahay oo rasaastii qorigaaga ka baxdaa aysan meel cidlaa dhacayn.
adigu waad sadheeran tahay oo 4 darbi dhexdood ayaad ku xiran tahay inta uu ceelku kuu buuxo bakaartana badar kuugu jiro adiga iyo colkaagu waad gacan saraysaan hoogaaguse waa marka muddo dheer uu dagaalku socdo oo uu cadowgu inta hareeraha kaa fadhiisto ku tashado inaad ama iskaa u dhimato amaba intaad naftaada u yaabto aad ogolaato inaad isdhiibto ha yeeshee halaagaasi daraawiish kolna kuma dhicin nin cadow isku dhiibaana weligeed kuma abtirsan dhagaystay waa taas daawadse kuma sii jirto waa qalcadda labada dabaq ah waa qalcadda la dhisay qiyaasta 1905 haddaad maanta aragtana aad moodayso cimrigeedu inuu 20 sano ku siman yahay waa qalcadda intay Soomaalidu adaygeeda ka yaabtay ay isdhex xuliyeen dhoobadeeda inaan biyo lagu qasin caana geel lagu qasay waa qalcadda intaan tafayaan dusheeda ku arkay biro wareeg u samaysan oo darbiyada ku dhaaban markaan toyday waxa lagu qaban jirayna la igu yiri fardaha lagu xidhi jiray oo sidee baa 3-4 jaranjaro ama salaan faraska loo saari jiray hay weydiin bay ahayd jawaabtii ninkii i waday uu maankiisa ka helay waa maalintii aan ka baqay inaan rumaysto sheeke beraley daraawiish dhexdeeda caan ku ahayd oo oranaysay taranka fardaha daraawiisheed wuxuu ka soo jeedaa geenyo boosa kurus lagu magacaabi jiray oo farda jinni leeyahay ka soo baxsatay dulucdii barnaamijka ayaanan ka fogaane Ismaaciil Mire ayaa sayidku bariyihii taleex la deganaa kormeer ugu diray qalcadda daawad xilkiisu wuxuu ahaa inuu ka soo warbixiyo ceelka ku dhex yaala iyo bakaartu daryeelka ay ku qabaan ciidanka daraawiishta ah ee fadhiya waxaa qalcadda madax ka ahaa darwiish la oran jiray Dhowre asii aanan magaca aabihiis helin Ismaaciil wuxuu raggii daawad fadhiyay kala kulmay habacsanaan ceelkii oo inuu guro ku dhow xaabadii habeenkii la shidan jiray oo aan badnayn iyo xoolihii oo aan dayrku u adkayn subaxdii dambe ayaa Ismaaciil doonay inuu ambabaxo Dhowre oo ka cabsi qaba warbixinta xun oo uu sayidka u geyn doono inuu malaha ku xujoobo ayaa dabadeed fariin gabay Ismaaciil u sii dhiibay wuxuu yiri Ismaaciil adaan daayinka diinta laayicine markuu waagu daalaco adaa dawga sii mariye dacwadan ku faro iiga geedaahirkii weliga hadaayicin walaalow aduu khayrku kuu duxiye daraawiishta qaybsii intaa daacad ugu sheegto duca waalid waad qabi jirtay dalidac haw yeelin daafnimaan lahayn bay digniin dani ka haysaaye darajaale aabbahay hadduu daawad nagu jaaday dooyada intaan galay miyaan libinku daanshooday hadduu doora weynow kufrigu duulan soo bixiyo oo daarta ayl yimi haddaan haad ku duulo faaqin alla ilahe afkaan soo dirsaday waa dareel marandhe Ismaaciil gabaygii kolkuu geeyey sayidkii waa u bogay Dhowrana wuxuu u qaatay darwiish daacad ah wuu u jawaabay isagoo waaninaya tixdiisana waxaa ka muuqata Ismaaciil Mire inuusan waxba ka qarin habacsanaantii Dhowre iyo raggiisa uu ku soo arkay wuxuu sayidku yiri war Dhowrow dabuurtii aad tidhi duca qabnoo keenye darwiishkiina sheegiyo ma qarin dacwadaadii hadalkii uu kaa soo daminay diirka ka caddee dadku maqal dibnaa inaad ka tidhi gaal cad baan diliye anna waan ku diirsaday ilaah darajo siiyowe maandhow dadaal yaadan noqon daaduf been badane hadduu doora weynow kufrigu duulan soo bixiyo maandhow dan ha u gelin fulaasii dabayshada dugabta iyo xaabadana guro duquskan u dhaanso durdurkana ha xaalaysanine dhararsan laaskaaga dunyadana dayr adag u dhigo yaanay kaa didine maandhow ninkii dowladaa kuu dagaalama kuwii dumiyey ilig waa waxaan daahir loo dhaline maandhow daawad yuu ina ka gelin cadalku soo doontay maandhow darbaan kuu dhisaya dibadda ha u boodin dabka ha iska lubin yaan ibliis dawya kaa ridine daartana ha bixin daayinka duni intaad joogto
ismaaciil midha wuxuu ahaa ninkaas ay sayid maxamed iyo dhowraba isaga marag fureen inuu ahaa darwiish daacad ah run badan oo duca sayid iyo mid waalidba qaba nin dhib galay waxbuu ugu xisaya dhidibka ma u aasay waxay ka mid ahayd gabay uu tiriyey gabayaagii xakiimka ahaa ee qamaan bulxan lagu magacaabi jiray waa run oo ninna danla'aan hawl adag uguma bareero ha yeeshee waxaa lagu kala gedisan yahay dhumucda ay hawshaasi leedahay faa'iidada laga gaarayaa inta ruux oo ay saamaynayso iyo raadka taariikheed oo ay hawshaasi reebi karto rag badan baa daraawiish ugu soo biiray inay hanti geel ku taabaan oo shanlihii iyo maadhiinka sayidka intay ku weerar galaan xidhiyo ku buuxsadaan rag badan baa daraawiish ugu soo biiray inay ku aarsadaan oo aanooyin hore iyo dakano laga qabay kaga gungaaraan rag badan oo darajo weyn iyo maamuus ku haystay ayaa xarumaha sayidka u joogay inay daraawiish manjaxaabiyaan oo abuur khilaaf iyo tara hadur ah ku hawlanaan jiray raggaas oo idili dhib bay galeen wax shakhsi ahna way ugu xisheene ismaaciil dhibtii uu galay muxuu ugu xishay innagoon meel kale ka dooninba isaga iyo maansadiisa aan ka tayoon waa maansadiisa waddaniga ah ee gumaysi diidka ah waa maansadiisa dareen taabad kale ee iyadoo aan adkayn haddana qotada dheerayd maansadiisa waaritaan kale ee boqolaal sano oo dambe la darsi doono maxaan maansadiisa ka soo qaataa daliilna u noqon kara waxa aan halyeyga kaaga sheegayo hallaylehe helay waa maansadii uu u tiriyey afadiisii faadumo dhoore tixdii caanka noqotay ee sayid maxamed iyo inta dal jacaylku ku wan yahayba ay ku jeclaadeen inta aanan tixda kuu marin aad sii macaansatide maandulucdeeda iyo sheekada ka horraysaba sidaan u helay kuugu soo gudbiyo ilaala cadow kormeer qalacdeed iyo gulif colaadeed wuxuu ku maqnaadaba 19 bilood kadib ismaaciil habeenkii dambe taleexa yimaad faraskii markuu ka soo degayba waxaa lagu daray ciidan uu sayidku soocay oo meel loo diraayay waqti gaaban oo waxaa la siiyey ay dumarkooda kula soo ballamaan wixii carruur lehina ay carruurtooda ku soo arkaan ismaaciil isagoo amarkaa qaba intaasna maqnaa ayuu soo dul joogsaday faadumo xabado iyo aqalkeedii way faraxday wax la cuno ayay dabka u tuurtay dhiilo culan ayay caana ka soo buuxisay kaydkii ay bilo dhigaysay iyo muqmad bay soo dhowaysay ismaaciil oo og inuusan waxaas u joogi doonin gartay inay faadumo tegiddiisa aad uga xun tahay isla markaasna aan rabin inuu raalliyadiisa niyad jabiyo ayaa gabay dabadeed caan noqday halkaa ka mariyey sababta maqnaanshihiisa dheer ku wacan ayuu afadiisa u sheegay annagana iyo inta naga dambaysana wuxuu u sheegay siduu u arkayay sayid maxamed iyo ololayaashii uu hoggaanka u hayay wuxuu yidhi faadumooy falaadkayganaan fiira kaa bariya in faseexad loo wada hadlay gobi ku faydaaye fahmadaba adaan qaadan baad feera hadashaaye filla naag taqaan waa iblays furuq alluu keenye fidmadeeda xaajada adaa faraya shaalleeye faranjaan ilaalaynayaa foos ka soo baxaye fadadaan wareegaa sidii farow ugaareed ma furfuro habeenkii guntiga foora soo dhacay fakayoonka iyo gaarka badan feeyigan bidaye xeeryahan fandhaalaysan iyo faarac labankeeda fujaamadan la iisoo sidiyo foonka malabaysan fartaydaba anoon saarin baan fuuli looshana ha furfurin darmada layga waa inaan fadhiistaaye inaan adiga kaafiigayaad igu filaysaaye furuq igu dilaa maa kalaan faraha saaraaye foolkii astaadkaan ku helay fayda iyo khayre faataxo markuu ii maraan farax dhaqaaqaaye ma fakriyo shareecada ninkii faraqa haystaaye dhegaystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta intaa ayuu noogu idiliyay dhegaystayaal barnaamijkeenna fanka iyo suugaanta ee maanta waxaanu ku soo qaadi doonaa hab ka mid ah hababka culinta suugaanta oo ah waxa loo yaqaan sarbeebta
loo duur xulo ee aan caddaanka loo sheegin waa hadal dhowr sababood middood ku yimaada waa xishood waa cabsi waa tusaalayn waa halxiraale adiga oo wax ka hadlaya markii aad wax kale ka hadashid ayaa lagu odhan karaa hebel wuu sarbeebanayaa ama wuu sarbeebtay sarbeebtu waa wax aad qarinayso oo aad rabto dadka qaarkii inuu garto qaarka kalena inuu ka daahna iyo tiraabfaneed labadaba way ku iman kartaa waxaana badanaa curiya dadka mansoolayaasha ah iyo qorayaasha tiyaatarka af ingiriiska waxay ku yidhaahdaan symbolism af carbeedkana alrams ama aladab alramsi waana qayb ka mid ah qaybaha suugaanta ee bari iyo galbeed adduunka intiisa badan laga yaqaan bal haatanna aynu isla eegno sidii ay soomaalidii hore u sarbeeban jirtay si aan u ogaano waxa ay sarbeebtu dhabtii tahay marka aynu suugaanteenna dib u milicsano dhamaan bulxan oo gabayaa soomaalidu ku faanta ah ayaa beri waxaa la yidhi gabar guursaday waxay ahayd gabar aad u bilicsan oo qurux loogu roonaaday ha yeeshee kolkii ay muddo wada dhaqmeen ayuu ku arki waayey wax qiimi ah oo quruxdaa dhaafsiisan fudayd uu u bogi waayey iyo hadda meel u kicid ayuu kala kulmay isagoo gabadhiisa luugsan ayaa dhalaartii dambe waxa u soo hargalay iyada walaalkeed oo sidii ay caadadu ahayd yaradoon ah qamaan wuxuu goostay inuusan gabadhaa yarad ka bixin walaalkeedna inuu ceebaheeda caddaan ugu sheego uu ka xishooday kolkaasuu u sarbeebtay wuxuu yidhi isagoo gabadhii ka hadlaya asii baal goroyo iyo faras doodiisa ku dhisaya baal goroyo waa lagu ogaa inuu bidhaamaaye barbara maalintuu tegey waxaa bi'iyey miisaanee birkolay ku tahay shayga fudud beesad lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacaye wada ba'an bani aadamkii midkaad waaye baratayd ninkii yaradka raadinayay kolkuu tixdaa maqlay ayuu isagoo aan erey kale soo celin dib isaga noqday maxaa yeelay haddii hadal wax dheef leeyahay loo dhammee waa taa sarbeebtu soo qaado tii wiilwaal iyo inankii uu adeerka u ahaa haweenay wiilwaal u dhaxday oo la xanan jiray ayaa la yidhaahdo ee uu isagu adeerka u ahaa iyo iyadu ay dad isugu dambeeyeen daraartaa ayuu wiilwaal go'aan ku gaaray inuu arrintaa hubsado oo uu inanka laftiisa runta ka ogaado ha yeeshee sidee buu uga ogaan waa inuu u sarbeebtaa oo su'aasha dabool xishood huwiya tixdan dabadeed caanka noqotay ayuu wiilkii ku su'aalay wuxuu yidhi wanaagsane walaalkay dhaliyow wiilkayow maxamed sac wanaagsan oo weyl watoo kayn wahdiya jooga oo yaraha waalwaalan oo wiilasha eryooda marna inaadan weysha u furteen ii marwacad eebbe meeshii uu haweenaydaya magaceeda carrabka kaga dhufan lahaa wuxuu gashaday sac irmaan oo socod badan bulshadana ogol hadba kii arkaana uu u godlado wuxuu su'aashiisii ku soo gebagabeeyey maandhow iigu dhaarmar saca sidaa u camalkasan inaadan weli u hawoon oo aadan caana ka maalin waa dood qarsoon waa hadal daahan waa sarbeeb wiilkii muxuu yeelay sarbeebtii wiil waa la mid ah ayuu su'aashiisii kaga jawaabay wuxuu yidhi dhaaran maayo laakiin tu dharla ma ay ahayn siduu adeerkii uu daboolka xishoodka doodda u saaray ayuu isna u saaray wuxuuna ku jawaabay su'aal rogaal celis ah oo jawaab u noqotay tii odayga hal waraaba dilay oo haddana weli xalaaleeyey wax qalo haddii lagu yidhaah oon wax kugu raacin inaadan weel u soo qaadateen ii marwacad eebbe muxuu ka hadlay wuxuu ka hadlay hal bahal dilay oo si loo cashuuro amaba loogu xisaabtamo markii ay dawladdu rabto inay ogaato dhaqaalaha dalka ay xukunto amar wuxuu soo saaray yaab leh oo aan loo joogin wuxuu yidhi geela soo tiriya oo tilib waliba ha ii keeno tirada karimada uu haysto waa waxaan la filayn oo aan dhaqanka soomaalida ku jirin ninka soomaaliyeed ma jeclaan jirin xoolaha uu haysto iyo mararka qaarkood tirada inuu isagu soo sheegay waa sanan laga siman yahay oo la rumaysan yahay wax aan la mahadin doonin inay ka imaan karaan xoolaha oo la tiriyo gada oo dhan baa laga oogsaday beelihii qaar baa awrtii soo qabsaday oo geyigii gadoodba ka guuray qaar baa inay dagaalamaan go'aansaday shir weyn baa lagu qabtay meesha yaaqle la yidhaahdo
halkaasoo la isku uugaamay. goobtaa waxaa joogay gabayaaga la odhan jiray guuleedka ofasamatar oo caanka ah. waxaa laga codsaday maalintaas aan carruur iyo ciroolaba edegeedka ka maqnayn inuu gabay tigiyo. wuu yeelay. kolkuu dhammeeyey ayaa la weydiistay inuu gaalada habaaro, iyada oo la rumaysnaa inuu afkuleedla yahay oo aan dawdiisu dhulka dhici doonin. maalintii dal la uumayoo nabi aadan dushiisa loo ekaaday qur-aanyo ilaahay asmaceenna shahaado ka yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ayaantii ka dambaysay ay qurayshtu isdhowday ee odayaasha la laayay ee dulqafaar rag afaystay. ilaahay nuura udgooni ummaddiisa naga yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay afar naas iyo cid yaroo ka daroosha ameen looga caddeeyey oo amarkiisa ku yeelay abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay sawjad islaam oo aadmi nooga sokaynin aqid noogu xariiqay oo dabadeed ilmihii iyo ubadkii naga siiyey abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay axad roori ka abuuray candhuufo oo dabadeed indhihii iyo afka noo kala qaadoo adin xoog lana siiyey abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay ebadkii iyo aalihii ka korreeyey iyo ishaad diinta u yeelay oo noogu dhiibay ikhwaanka abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. ilaahay asasheenna indhaheenna ka duugay oon caleelkoora u yeelin iimaan nooma sugmeene abaal baan la gudayna asxaan waa ka qabnaa. gabay waa afkuleeble, wadaad waa akhrigiisa, gobi waa ta ergeysa, naaga waa indhahooda. ilaahay cirka uumayoo dhulka hoos ka aslaxshayow, ilaahaan arrinkiisa aadna jiidi karaynow. ilaahay gabay aada afka iigu xariiqayow, maanta waan ergeyne amarkaan odhanaayo aqbal iigu jawaab. ilaahuw nin uraayo nabi aadan ka leexdaan oo intii isu keenay. ilaahuw ingiriis iyo amxaabtiisa wajoogtiyo sudaan room ka adeegtiyo udubkiisa la siiyo. rag armaatiga qaatow naxariis ilha saarin, ciidii bandada ahayd iyo goglahow ka idlaada. aqiidkiiyo bandaaskow ibilays hayna dhammeeyo, afnaqa iyo boygow araggiin ha la waayo. sinka meel walba aadow irid ha u dhaqdhaqaaqin, markabkii badda aadow irjac meel isu taag. baawurkii ordiyaanow omas meelaad la jiifso, lexlihii ololaayow ilmihiiya naaga iyo abar haw taliyeen. dadkuse waa kala oode, ninka geela afsaartayow ayaantaa aynu joogno ayaanteeda kaleeto amarkaagu ma gaaro asma beerka ku goys. talyaanigu ku jabay dagaalkii labaad ee dunida adigu sidaad rabto u fasiro, kutubta taariikhdooy adiguna sidaad rabto u weri. laakiin gabayaaga iyo dadkii maalintaa ogaa waxay u saariyeen oo jabkaas sabab uga dhigeen geeraarkaas daawashada ah ee yaaqle uu ka tidiyey afkuleeble guuleedka ofe. waa habaar aan ku magacaabi karo habaar siyaasadeed, loona ekaysiin karo waxa ay diblomaasiyiintu cambaaraynta maanta ugu yeeran. haddana waa 1941 waqooyiga Soomaaliya ayay ahayd. waxaa socda dagaalkii labaad ee dunida. talyaaniga iyo ingiriisku waa col aan isbixin oo xiira ah. Soomaali galbeed iyo dalka xabashida ayuu talyaanigii sahal ku taabay, horeyna waa kii u haystay koonfurta Soomaaliya. waqti kadib wuxuu haddana taliskii ingiriiska ka cayn wareejiyey waqooyiga Soomaaliya. gumaysigii la yaqiin waxaa u bedelay mid aan la aqoon oo dardartiisii qaba. ingiriiskii oo aarsanaya wuxuu waqooyi iyo dhulkii uu talyaanigu haystay ka xiray saa waxbaa xeebihii ka soo degi waayey. lacag yar oo aan wax lagu gataa oo baa dad yar farahooda ku soo hartay. intaas waxaa u dheeray baandadii ciidamada talyaaniga ku jirtay oo falfalxumo dumarkii kula kacay. wixii hantiya oo ay arkaanna dadkii ka dhacay. nin gabaya ahaa oo aanan magaciisa aqoon ayay ula ekaatay in ingiriisku talyaaniga dhaamay, oo inkastoo ay laba gumaysi ahaayeen aan badin waxa uu talyaanigu markaa ku hayay. waa habaarado wuxuu yidhi, talyanow sidii duur la gubay dabaysukaa dhaafi, dekedaha wax kugu qayliyaa kaaga soo degee dusha kaaga dhace garnayluu sheeri soo diraye dalka yaga ilaah kaa kaxee duhur dharaareede dulli baadna saartaye
ilaah ugu dambaysay. guuridii uu talyaanigu waqooyi ka guuray iyo gacan sarrayntii ingiriiska adigu sidaad rabto u fasiro kutubta taariikhdooy adiguna sidaad rabto u weri laakiin gabayaaga iyo dadkii maalintaas ogaa waxay jabkaas sabab uga dhigeen gabaygaas daawashada ah ee uu ninkaasi tiriyey waa habaar siyaasi ah u ekaa ambaaraynta diblomaasiyiinta. dhegaystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta intaa ayuu noogu leeyahay. dhegaystayaal maansayahan kasta oo tirinta gabayada caan ku noqda waxaa mar walba la jecel yahay in la ogaado tixihii uu tiriyey kuwii ugu horreeyey ee uu ku bilaabay si loo garto halkii uu ka soo anba qaaday loona garab dhiga dabadeed heerka uu markaa joogo. carruurtu way dhalataa kolkaas bay fadhi barataa wakhti kadib way gurguurataa hadhowna way socotaa. waxaa malahayga la masaa gabayaaga oo kolka uu bilowga yahay iyo kolka uu caynaanka maansataaba ay wax weyne u dhaxeeyaan inkastoo aan koritaankaas gabayaa oo idili u sinayne qaarkood uu durba bilowga degdeg uga hinqado qaar kalena halkii ay ka ambaqaadeen ay muddo ku meermeeraan oo sida carruuraha barkood fadhiid magac ugu yeero. nasiib darro qoraal la'aan awgeed rag badan oo Soomaali ah maansadana caan ku ahaa ayay suuragal noo noqon weyday inaan ogaano tixii ugu horreeyey ee ay ku bilaabeen. raagowgaas sayid maxamed cabdilla xasan, faarax afcad, qamaan, cali dhuux, saraan, ismaaciil mide iyo boqolaal kale oo aynu midba wuxuun ka hayno ayaa ragga ah ka mid ah. kumana jiro midkood ay duulka suugaanta baara maansadiisa intay xilliyeeyaan tu ka mid ah way ugu horraysay ama wuu ku bilaabay ay ku doodi karayaan. dood muran la'ahna weeye doodda aan sheegaya. dulucda aan arabtaas maanta uga gol leeyahay waxay tahay su'aalo ay suugaanleyda iyo inta murtida jeceli ay mararka qaarkood isweydiiyaan oo ah tolow sayid maxamed hadmuu tirinta maansada bilaabay. tixihii ugu horreeyey kuwa may ahaayeen maxayse ahaayeen astaamihii guud ee ay maansadiisu lahayd amaba xanaqaadka ka dhigay. su-aalahaas aan maanta ka faalloodo oo ku bilaabo xilligii barbaarnimada iyo xirnimadiisii markaan u dhabagalno lama soo gaarin wax gabay ama geeraar ah oo sayid maxamed loo sheegay. taasi waxay yeelan kartaa 3 sababood. tan koowaadi waxay tahay gabayga oo tirintiisu culimada iyo xer quraanta ceeb ku ahayd loona haystay wax aamada u bannaan culimaduse ka caagan tahay. tan labaad oo noqon karta inaan shaydaanka gabaygu barbaarnimo ku soo haleelin kuna baraarujin inuu aftaan yahay. tan saddexaadna waxay noqon kartaa inuu gabayga xilligaa isku dayey ha yeeshee inta u bogi waayey dadka ka qariyey in laga wariyana wuu ka xishooday isagoo ka yaabaya inuu wax ka sheeg ku muto. sababahaas mid ka mid ahi ha ugu wacnaato ama si wada jir ah ha u saameeyeene sayid maxamed nagama soo gaarin wax gabay ah oo daraawiish dhismaheedii ka horreeyey gaar ahaan sanadkii 1904 iyo markii ilig iyo ayl xaruntu degmaysatay. hase ahaatee waxaa hubaal ah inuu tirinta gabayga markaa ka hor isku dayey kuna guulaystay. gudban iyo jiinley labada tixood ee ku magacaaban sayidkuna caanka ku yahay ayaa gabayga ilaa maanta la hayo ugu taariikh fog. labadoodaba wuxuu mariyey markuu inta sodcaalkii dheeraa ee boqor cismaan ku soo khasaaray uu ayl degay. waa calaacal, waa guubaabo daraawiisheed, waa goodi, waa arar kulul, waa gabay colaadeed, waana dhaar. waa gabayada sayidka labada ugu qotada dheer, ugu eraya macaan, ugu duruc shisheeya, uguna dhismaha wacan. labadaa gabay oo gabayada laga hayo ugu taariikhda fog ayaa wariyayaasha qaarkood u horseeday inay ku andacoodaan gabayo uu tiriyo kuwii ugu horreeyey inay yihiin. kuwaasi waa wariyayaashii allaha ka cafiyey
ma ay garannin bilow ahay jiinley oo kale inuusan tirin karin amase uusan ararta gudban oo keliya curin karin iyo dhextaaladeeda midna. qolo kale waxay wariyeen gabay kale oo u eg masafooyinka wadaadadu dadka ku wacdiyaan. waxay ka kooban tahay masafooyinkaasi ka kooban yihiin dhowr tuduc oo iniba ay isku xaraf yihiin. waa gabayga leh allaa xoog leh, diin baa xarbi leh, tegid xajkii baa leh, god baa xigid leh, xoor baa dhanya leh, dhaqasho xiitaa leh, xasad iyo xumaan laysku dilo xiisad beled baa leh, aqal xeerar weyn xaal gobeed xilasho gaaraa leh, xurmo iyo wanaag loo xishiyo xidid galbeed baa leh, waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baa leh, lo' sixin leh, ari baa sadqa leh, sooryo ibil baa leh, bir baa surub leh, soofaa wax jara samayo geed baa leh, rabbaa deeq leh, roob baa qabow, raaxo nabad baa leh, jannaa rugax raxmaan baa barya leh, raacis nebi baa leh, wardaa ridis leh, weli baa rilla leh, rabid shareecaa leh, jannaa udug leh, jiic baa godgodan, jahannabaa qiiq leh, jikraa ridis leh, xoolaa jigjiga jooga anigaa leh, wuxuu soo jibaadaba libaax jees maraa micile. tuducyadaas dhowrka xaraf ku kala socda ayay ku andacoodeen inay sayidka gabay ugu horreeyeen, hase ahaatee way ku gabsan yihiin aragtideeda. xag dhisme iyo xag taariikheedba markii laga eego ayay noo caddaanaysaa inaan dulucdaasi ka horrayn karin labadii gabay ee aan ka soo faalloonnay, waa gudban iyo jiinley. gabayaa kasta wuu og yahay habka ay taxahaasi u dhisan yihiin inuu yahay habka ugu adag, maxaa yeelay waxaa qasab ah xarafka uu gabaygu ku socdo inuu soo 3 jeer noqdo, iyadoo 3 jeerba laga hadlaayo arrin iskeed u madax bannaan. waa hab uusan u beerdhigi karin nin gabay barad ah ama ku jira xilliga istijaabinta ee aftahamadu soo wada maraan. midda kale xagga siyaasadda iyo taariikhdaba markaynu milicsano ayay caddaanaysaa inuu sayidku tuducyadaas ku maansooday xilliyadii uu daraawiish dhidibada u aasay ee uu ayl fadhiyey amaba ay talix soo degeen. bal u fiirso labadan meeris: xurmo iyo wanaag loo xishiyo xidid galbeed baa leh, waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baa leh. waa 2 meeris oo laga garan karo inay ka soo baxeen nin siyaasadeed oo soomaalida kala bartay, la wada xaajooday, qaarkood dhanka daraawiishta iyo taageeradooda ammaan ugu soo leexsanaya, qaarkood kalena caayaya kadib markay jihaadkiisa garowsan waayeen. xurmo iyo wanaag iyo xididnimo galbeedka soomaalida degta ayaa iska leh, hase ahaatee xishood darri iyo garaadka dameeruhu waxay u sugnaadeen dadka bari degan ee boqor awlaha u yahay, jihaadka loo guntaday u soo bixi waayey, ballankii ay nala dhigteenna beeniyey weeye dulucda 2 meeris. bal mar kale haddana u fiirso meeriskan isaguna duridayada andacoodka wariyayaasha taageeraya oo ah jikraa ridis leh, xoolaha jigjiga jooga anigaa leh. wuxuu leeyahay qoriga jikraha ah ee rasaas qaadka weyn leh ayaa wax la rido oo lagu dagaalamo ah. xoolaha ceelka jigjiga daaqayana inkastoo ay iga fog yihiin, haddana gacanta daraawiisheed ayuunbay goor ay noqotaba ku dambayn doonaan. muxuu ina tusi karaa meeriskaasi? wuxuu ina tusi karaa 2 arrimood. waa tan hore inuu sayidku yiqiin qorigii ay soomaalidu jikraha u tiqiin, afka qaraadna maxim lagu oran jiray, 200 oo xabadoodna mar qura lagu cabban jiray. qorigaas waxaa sayid maxamed iyo daraawiishba ugu horreeyey sanadkii 1902 markay ingiriiska kaga furteen goobta Eerago ku magacaaban ee isla sanadkaa dhacday. waa jikrahaas waxa uu tilmaamayaa ee uu cadowgiisa ku niyad jabi isleeyahay, waana jikraha keliya midka ay weligood heleen gadaalkiina markii 1900